Furiinkii ugu la yaabka badnaa dunida ayaa ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta kadib markii haweeney Sacuudiyaan ah ay ku kacday fal la yaab leh kaas oo ahaa inaysan rabin nin bidaar leh isla markaana uu ninkeeda cusub bidaarta ku qiyaamay. Maxkamad ku taala Abu Dhabi oo markii hore isku mahrisay labada lamaane ayaa hadda waanwaan ka dhex bilowday lamaanayaasha inkastoo haweeneydu diiday waanwaantaas. Haweeneydan ayaa ku andacootay in ninkan yahay khiyaanolow maadaama ay wada socdeen in ka badan 1 sano isla markaana uu intaas bidaarta ka qarinayay. Ninka bidaarlaha qudhiisa oo arrintan ka gaabsaday ayaa mar la weydiiyay wuxuu sheegay in la yaab ku noqotay in qof dhan oo xiriir jecel ka dhaxeeyay in ka badan 1 sano ay bidaar dartiis uga tagi karto isla markaana ay furiin dalban karto. Haweeneyda oo la weydiiyay qaabka ay ku fahmi weysay in saaxiibkeeda cusub leeyahay bidaar waxay sheegtay in markasta oo ay wada kulmayaan uu soo xiran jiray koofi ama cimaamad isla markaana ay ka xishoon jirtay inay koofida ama cimaamada ka faydo oo ay sidaas ku aragto. Mar la weydiiyay sababta ay bidaarta ku diidayso waxay sheegtay inaysan rabin in carruurteedu bidaar yeeshaan saas darteedna laga yaabo in aabahani uu dhalo carruur bidaar leh. Haweeneydan ayaa fariinka dalbatay 2 maalin uun kadib meherkooda xilli la saadaalinayay aroos guuleysta. Arrintani ayaa la yaab ku noqotay dadka ku nool Dubai ama Sacuudiga iyadoo warbaahinta caalamka ay arrintani hadal hayso. Haddaba ma laga yaabaa in haweeneydani markii horeba ay doonaysay meherka uun oo aysan bidaar ka cararaynin oo ay sidaas darteed guurka ku kasbatay ama ay ninkan guurka uga dalbatay iyadoo markii horeba rabtay inay iska furto saas darteedna ay meherka uga qaadato. Haddaba fikirkaada ayuu nagu wadaag qaybta commentiga sidoo kale muuqaalkan la wadaag asxaabtaada oo sii share garay mahadsanidin daawadayaal.